بسم الله. ما كوالانaysaa madaxa waxay dad far badan oo xaajira madaxa aad uga waalanaya oo aan ka seexanayn wareer badan uga furan yahay mar walba isku buuqsan hurdo la'aan hayso dhibaataysan guriga ku nasan la guriga kale alaabta habeenkii soo daadanayso dadka markaad shaqada aad dadka ku wada maaragtay maxay ahaydey waji xun ku wada tusaya shaqada laga soo eriyayo maaragtay qof kastaba oo aad la hadasho oo nacayb ku muujinayo xanuunada noocaas inta badan waxa weeye waxaa keena sixirka ishana waa keenta laakiin inta badan anwaca sixir weeye oo qofka maskaxda looga xiray inuusan wax baran inuusan shaqaysan inuusan guursan la fahmin dabeecadiisa iyo dhaqankiisa uu noqdo qof aad u xun dadka dhinacyada looga dhigo ma rabtaa insha Allah si fudud ilaahay idinkiina aad ku soo saarto ilaahay idinkii ilaahay ya rabbi raxmaan ka soo saaro qof kasta la dhiban haddii jawaabtaadu haa tahay ama aad dhiban tahay oo dhakhtar ku waalataad fahmi lahayd xanuunkaaga oo aad leedahay mar uun ma daawo lagu siiyo aad ku caafimaadid talada yartaa qaado ilaahay idinka waad ku caafimaadaysaa lambar 1 waxaa soo qaadanaysaa saliid zaytuun ilaahay idinkiis ani zaytuun bishardi in organic ahaato waa organic oo ardu shaam waliba ka timi saliidaha qaar isbeen ka yimaado wareer badan bay qaar leeyihiin bishardi waa inay ka timaado ardu shaam saliida soo qaado nus litir oo kale 7 xabo oo toonta qoyan ah intaad toonto ku dar hal qaado oo qasdul hindi ah hal qaado oo qasdul hindi ah ku dar kadibna dabka la saar wax yar uun diiray markii wax yar isku diiraan oo aad aragto in saliida ay diirimaad noqoto oo wixii dhirtaasi nafaqo ku jirta ay la soo bixi karto dhulka dhig markay qabowdo suuratu duukhaan aayada ku jirto ee 48 ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب صح ثم صبوا سورة الدخان آية كو جرتا ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم آية داست كنجر كو آخر نساء كنجر بعد كو آخر نساء هذا سليد أفو هاي تو هذا سوى سيسو أولا سوى سيسو laba ragcadood tuko ilaahay bari in ilaahay subxaanahu wa tacaala oo xanuunkan iyo dhibtan hadduu ku hayana kaa qaado haddaad fahmi lahayd ilaahay ku fahansiiyo kaana qaado soo weysiiso laba ragcadood tuko istighfaar badan la imow culimadu waxay dhihi jireen markay su'aal nagu akaato intaan soo weysino tukano laba ragcadood baan istighfaar intaas jeer akhrin jirnay markaas ilaahay waxa noo furi jiray istighfaar badan horta la imow dunuubta ku hortaagan iska leex kadibna hawshan samee suurada aayadaas kunjeer ku akhri ilaahay idinkiis kunjeer waxaan u leeyahay kullama quraanku uu ku bato ama tahliisha ama saliida wa kullama uu zaid ku noqdo cadaabku daciif ay ku noqdaan maxaa sameynaysaa marka qaabkan fudud bad ilaahay idinkiis sameynaysaa kow saliidii markaad quraanka ku dhamaysid oo aad check kunkii ku siisid aayadaas haddaadan aqoon akhri insha Allah taala okay baro way fududahay markaad ku dhamaysid ya yani wa anta maaratay inaad tahay yani qof yani yaqiin in ilaahay kugu caafinayo oo aad ku dhamaysid waxaad marsanaysaa kow halka madaxa maaratay barta ku horta adaa yaqaan madaxa halka dhalada thumma subbu halka ahlu naarka madaxa looga shubi doono aad waxa ka sheekeynaysaa dadka madaxa adag ahlu naarka maaragtay in cadaab daran oo xamiim oo maaragtay holcaya madaxa looga shubi doono okay marka saliid bad madaxa ku shubaysaa karkaraysa yani aayaadka cadaabka ay ka buuxaan bad madaxa ku shubaysaa ilaahay idinka sidoo kale waxaad marinaysaa meelaha ku tilmaami doono number 1 xudunta mari dhagaha fiidoodana mari sanka hareeriisa mari suuniyaha korkooda mari labada naas ibtooda mari labada xubin hareerahooda mari 10 farood يعني farahan 10 kan hore يعني gacmaha 10 farood cidiyaha hoostooda baad marinaysaa 10 kaba baad saliid marinaysaa 10 lagu hana sidoo kale maxaan saa u sameeynaa waxaan u sameeynaa waxa jirka ku jiro ilaahay idinkii jirka kama baxayaan way ku gubnayaan ama waad matagi doontaa ama waad shumi doontaa ama ilaahay idinkii
si uun buu alla kaaga saari doonaa. Okay, laakiin inaad shubanto iyo inaad matagto iyo inuu jirku gariiro iyo inay gubtaan iyo inay qayliyaan xataa haddii jirka xataa ilaahay idinka ay ku qarsoon yihiin ilaahay idinka way soo baxayaan. sidoo kale waxaad marsataa labadan meelood dhabarka qaybta dambe, dhabarka qaybta u dambaysa ayaad marinaysaa, labada margina xawil mariidka waad marinaysaa insha Allah, labadaasna waad marinaysaa dhagaha hoosteeda ka soo bal ilaa hoos baad geynaysaa waad marinaysaa. kadib ilaahay idankii waxaad samaysaa suuratu baqara dhagaha gasho. okay, hadda aayadda adigu akhrin kartana aayadda akhri, thumma subbu fawqa ra'si min cadaabi alxamiim ku celceli. haddaadan garanaynina suuratu baqara dhagaha gasho. suuratu baqara ilaa ay ku dhammaatana sidaas samee. ilaahay idankii waad ku caafimaadaysaa. ilaaha weyn ee waaxidkan ku weydiin walaalka iyo walaasha dhibano ee xanuunkooda garan la oo inuu ilaahay ka soo saaro oo ilaahay ku caafiyo oo meeshuu ka yimid alla ku celiyo. aad iyo aad baa mahadsantihiin. intaa yar same allah idinku shaafiyo walaalaha kale u sii gudbi. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.